ciidanka booliiska gobolka Sanaag ayaa xusay xuska ciidanka booliiska Somaliland sanad guuradoodii 29aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska waxaana ciidanku gaarfis ay ku soo mareen wadooyinka iyo sharciyada magaalada Cerigabo ugu dambeyntiina waxaa xuskaas xafladiisa lagu qabtay xarunta ciidanka birmadka ee magaalada Cerigabo waxaana ka soo qayb galay xuska ciidanka booliiska maamulka gobolka Sanaag ee degmada Cerigabo iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Sanaag gaashaale sare Salebaan Ducaale Ubaxle iyo xubno kale oo saraakiil ah waxaa noo koray 3 saldhig oo cusub 2 saldhig oo cusub oo aanu ka dhisnay gobolka Sanaag oo taliyaha ciidanka booliisku noo dhisay hal saldhig oo imika gacanta lagu hayo lagu wado degmada Laasa Surad waxaa noo soo kordhay gaadiid cusub waxaa noo soo kordhay aqoonta booliiska in sare loo qaado waxaa maanta halkan kale aan idinka cilaaminayaa in ay dalaceen oo darajada Ilaahay baa bixiya ay qaateen saraakiil aad u fara badan 21 sarkaal ayaa ka dalacay ciidankuna waa uu soo socdaa tiisa ballaadhani dhammaan saraakiisha dalacday waan u hambaleynayaa waxaan leeyahay hambaliyo ugu diray jananka ciidanka booliiska jananka ku-xigeenada hogaanada iyo saraakiisha ka hooseysa oo dhan halkan waxaan ka salaamayaa isagana taliyaha qaybta iyo saraakiisha qaybta oo dhan waxaan leenahay sanadkiisa Ilaahay barwaaqo iyo bashbash ay nagu gaarsiiyo in Ilaahay sanadkiisa ku gaarsiiyo sanadka dambe nabadqab iyo guul in Ilaahay ku gaarsiiyo dhammaantoodba waxaan leeyahay sanadkiisa ku gaara guul iyo nabadgelyo idinka iyo oriyihiin iyo caruurtiinuba waxaan halkan gudagelayaa dambiyada uu booliisku had iyo jeer ka shaqeeyo oo kooban oo aan dul marayo iyadoo aan hadii dabada la qabto aan laga dhamaan karayn sanadkan 2022 gobolka Sanaag waxa ka dhacay 14 dil ciidanka booliiska ee Somaliland meel kasta joogan aad baan u salaamayaa saraakiil xigeen alifle iyo dableyba 29aad ee ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliiska waxaan leeyahay hambaliyo guud ahaanba ciidanka booliiska hambaliyo iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba waxaan u rajaynaynaa sanadkiisa xiga inay ku gaaraan barwaaqo iyo bashbash dakhli soo saarka oo ugu horeeya taliyaha qaybta inta ka dalacday gobolka Sanaag waxaan leeyahay hambaliyo Allah idin barakeeyo hadda xabsigu waa buuxaa sababaha keenay inuu buuxsamana waa shaqada ay qabtaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag iyo dhammaan ciidamada kaleba gaar ahaan ciidanka booliiska waxaanu halkan ka cadaynaynaa annagu gaar ahaan wada shaqayn ballaaran baanu leenahay ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Somaliland si guud waxaan u hambaliyeynayaa ciidamada booliiska janankooda janan xiganadooda qaybahooda kala duwan ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame iyo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Sanaag maayir ku-xigeenka degmada Cerigabo waxaana ay u hambaliyeen ciidanka booliiska munaasabadda sanad guurada 29aad awgeed ciidanka gobolka Sanaag oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaasha kala duwan haday tahay birmadka dhammaantood waxaan leeyahay hambaliyo waxaan mar labaad u hambaliyeynayaa saraakiisha dalacday ee 21ka qaybahooda kala duwan waxaan leeyahay hambaliyo Ilaahay ha idin ka dhigo dalacada dalacdeen mid idin anfacda dalka iyo dadkana anfacda